Ibliis markii la ceeriyay kadib, Aadam iyo Xaawo Alle waxa uu ku dhahay degnaada jannada kana cuna meel waliba. Ibliis sanado badan ayuu doondoonayay in Aadam iyo Xaawo jannada dhexdeeda waxa ay ka qabanayaan inuu ogaado. Ibliis waxa uu ka fekerayay in badan sida jannada dhexdeeda uu ku geli lahaa iyo sida Aadam sidiisa oo kale dembi uu ku gelin lahaa. Mana ogeyn Ibliis dembi haddii Aadam uu galo natiijada ka dhalan doonta. Waxa uu islahaa Ibliis sidaada oo kale isagana waa la fogeyn doonaa, ehelka jahannama ayaad isla noqon doontaan. Qorshahani ayaa Ibliis mar walba albaabka jannada ula imaan jiray, isaga oo qof walba ee jannada ka soo baxa, xayawaan iyo malagba weydiisanaya in loo fududeeyo in albaabka jannada uu ka galo. Noole walibana waa uu ka diiday ilaa maalin shimbirka daa'uuska ah uu ku dhahay, ii ogolow, malag ayaan ahay in albaabka jannada aan ka galo. Shimbirkii daa'uuska waxa uu ku dhahay, ma awoodo in albaabka aan kaa geliyo iyada oo malagyada aanan ku arkayn, ee waxa aad samaysaa u tag abeesada kuna dheh albaabka ii fududay in aan ka galo, iyada ayaa ku caawin doonta. Ibliiskii ayaa u yimid abeesada, waxa uuna ku dhahay, waxaan doonayaa inaan u tago ninka Aadam ah ee jannada ku dhex jira, waxaana u wadaa waano iyo nasteexo. Abeesada waxay ku dhahday, haddii aad waano iyo wax khayr ah aad wadid, u tag malagyada albaabka furaha jannada haya, iyaga ayaa ku gelin doona. Ibliis waxa uu ku dhahay, waxay i weydiinayaan kuwa haddii aan u tago nooca nasteexada aan u wado iyo ducada aan bari doono. Sidaasi darteedana la iima ogolo in aan Aadam hortii qof aan u sheego. Abeesadii way aamintay hadalkii Ibliis iyada oo u haysata malag, waxayna ku dhahday, waan kuu fududeynayaa in albaabka jannada aad ka gasho, balse la imaw qorsho aad ku geli kartid jannada iyada oo malagyada aanan ku arkayn. Ibliis waxa uu ku dhahay, waxaan suuradeeda u bedelayaa sida dabeel oo kale, adiguna afka kala fog, kadib aniga oo adiga kugu dhex jiro ayaan jannada sidaa ku gelayaa. Waxaana ixsaan igu samaysaa inaad i geysid halka geedka cuudka uu ku yaalo agtiisa. Abeesadii sidii ayay samaysay, Ibliis ayay afka ku soo qaaday isaga oo dabeel oo kale ah. Markii geedka ay ku heshiyeen ay keentayna, Ibliis waxa uu bilaabay inuu heeso hees cajiib ah oo dhegaysiga codkiisu aad u wanaagsan yahay. Durba waxaa u soo kala cararay abuuna Aadam iyo ummuna Xaawa, iyaga oo fiirinaya qofkani geedka hoostiisa ku akeesaya. Markii uu Ibliis arkay Aadam iyo Xaawo, heestii waxa uu u bedelay oohin iyo calaacal. Ummuna Xaawo aad ay ula yaabtay qofkani jannada dhexdeeda ku dhex oonaya, waxaana la weydiiyey waxa ku dhacay iyo waxa uu la oonayo. Waxa uuna Ibliis ku dhahay, waxaan ku dhaartay Alle magaciisa, waxaan la oonayaa adinka dartiina. Aadam ayaa mar kala naxay, waxa uuna ku dhahay, maxaad darteena ugu ooynaysaa oo maxaa nagu dhacay? Ibliis waxa uu ku dhahay, waxaa ii sawirmay barwaaqada iyo nimcada quruxda badan ee jannada aad ku dhex joogtaan, in muddo kooban kadib aad ka dhiman doontaan. Aadam ma uusan aqoon wax dhimasho la dhaho, waxa uuna ku dhahay, oo maxaa laga wadaa dhimasho? Ibliis ayaa ku yiri, howlgab ayaad noqonaysaan, dad aanan jirin oo kale, nimcooyinkanina dib dambe uma arki doontaan. Maadaama aan idin jeclahay, heesna aan idin qaaday, haddii aad rabtaan inaad nolol daa'ima halkani aad ku sii dhex noolaataan, geedkani wax ka cuna. Aadam ayaa ku yiri, maya ma cuni karo geedkani, waa mid uu Alle iga mamnuucay. Ibliis waxa uu ku yiri, qalad ayaad fahamtay, waxaa geedkani lagugu diiday oo keliya in aadan malag noqon, balse inaad waarta ahaan geedkani waad u cuni kartaa. Aadam wuu ka madax adeegay geedkani inuu cuno, balse ummuna Xaawa ayuu Ibliis hadalkii u sii waday. Waxa uuna ugu dhaartay sida uu sheegayo in sax ay tahay, isaguna halkani uga soo horay wax walbana uu yaqaano. Waxa uuna ku dhaartay magaca Alle in wanaagooda uu ka shaqaynayo, dhibna uusan uga imaan doonin, isaguna uu jecel yahay in jannada dhexdii ay ku dhex waaraan. Wa qaasamahuma innii lakuma lamina naasixiin. Markaas ayaa ummuna Xaawa waxay run u malaysay hadalkii Ibliis, waxayna geedkii ka soo jartay xoogaha miro ah, kadibna iyada way cuntay. Aadam calayhi salaam ayayna u keentay, waxayna ku dhahday, cun geedkani, ninka waa uu inoo dhaartay. Xilligani iyagu ma aysan ogeyn in Ibliis uu yahay qof beenloow ah, waxayna u arkaan dadka wanaagsan ee jannada dhexdeeda Alle uu ku dhex abuuray.
aadam wuu diiday in miraha geedka uu cunay in muddo ah ayaa la sheegaa in uu ka fogaanayay, balse markii uu arkay in Ummuna Xaawa wax saameyn ah aysan uga imaaneyn ayuu isaguna dhadhamiyey mirihii Ummuna Xaawa geedka ay uga keentay. Markii labadoodaba afka ay wada geliyeen, waxaa ka biibay taajkii dahabka, yaaquudka, marjaanka ka samaysnaa ee madaxa labadoodaba u sugnaa, iyo dharkii quruxda badnaa ay xirnaayeen. Sariiraha dahabka ee jannada dhexdeeda ay ku jiifeenna waa ay ka hoos baxeen, iyaga oo dhahaya sidee ayaan u xambaari karnaa xishood la'aan qof ku caasiyey Allaha Raxmaanka ahaa. Aadam calayhi salaam iyo Xaawo iyaga oo la yaaban wax walba inay ka cararayaan ayaa Alle waxa uu ku yidhi, Aadamow, soo kuma aanan dhihin geedkaasi ha u dhowaanin. Waxa uuna Aadam Alle ku yidhi, Eebow, jannada dhexdeeda magacaaga ayaa qof iigu dhaartay, umana malaynayn magacaaga in jannada dhexdeeda qof ku jiro si qaldan in been uu adeegsan karo. Waxaa u bilowday Aadam calayhi salaam murugo iyo tiiraanyo, halkii ay u malaynayeen in geedkani cunistiisa jannada ay ku joogi doonaan. Beddelkeeda waxa ay noqotay mid jannada loogaga soo saaro. Waxaa markaasi jannada laga soo saaray afartooda, abeesadii Ibliiska u fududeysay in jannada uu soo galo Ibliiskii, Aadam iyo Xaawo, waxaana lagu yidhi, Aadamow, u deg dhulka. Waxa ayna afartooda ku soo kala dhaceen meelo kala duwan oo dhulka ka mid ah. Bilowgii Aadam ayaa ku soo dhacay halka loo yaqaano Buut oo ku taala Indiya, isagoo caraf badan, carafta jannada. Kadibna Ummuna Xaawa iyaduna waxa ay ku soo degtay dhulka Jiddah, dadka qaarkoodna waxa ay dhahaan waxa ay ku soo degtay Carafa, qaar kale ayaa dhaha waxa ay ku soo degtay Musdalifa. Waxa ay ahaataba dhulka Sacuudi Carabiya ayay Ummuna Xaawa ku soo degtay. Ibliiskiina waxa uu ku soo dhacay dhulka Albuudah loo yaqaano, magaalo Basra ee dhulka Ciraaq ka tirsan. Culimada waxa ay dhahaan qaarkood Ibliiska waxa uu ku soo degay Jiddah, abeesaduna waxay ku soo dhacday dhulka Baysaan ama Sajistaan, qaarna waxa ay dhahaan dhulka Isfahaan oo Iiraan ah. Marka ay afartooda dhulka ku soo dhaceenna, waxaa u bilowday qiso kale iyo sida dhulka ay isku arkeen, waxa ay ku sheekaysteen iyo oolaadii ugu horeysay sida ay ku dhaleen, iyo dagaalkii Haawiil iyo Qaawiil wixii uu ku saabsanaa heer qof uu qof kale u dilo. Qisaduna waa ay sii socotaa, waa inoo qaybta afraad iyo habeen dambe.